جمال الوجود بذكر الإله wuxuu ahaan jiray nin been sheega beenta markuu sheegana waa laga xambaari jiro waa laga qaadi jiray markaasaa jihooyinka lagu kala faafin jiro meel walba la gaadhsiin jiray goobaha aadamuhu ku xidhiidho iyo mawaaqiicda tawaasulka dadku ay ku xidhiidhaan ayuu ku qorayaa ama cod ahaan u gelinayaa WhatsApp gelinaya Facebook gelinaya Fiber gelinaya ayuu gelinaya waxyaalaha bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaas hal mar waxa daalacanaya khalaa'id aan xasili lahayn waagii hore intay gaari kartay way koobnay maanta saxaab halkaas u gaadhay ittaqillaha ya rajul ilaahay ka baq نبينا صلوات ربي وسلامه wuxuu ahaan jiray markuu salaada subax tukado saxaabadu ku soo jeesan jiray dadka uu tujiyay saxaabadu isku soo jeesan jiray markaas wuxuu dhigi jiray yaa xalay wax riya ku riyooday hadii nin riyooday uu jiro riyadu sheegi jiray kadibna nabigu waxbuu ka dhigi jiray salawaatu rabbi wasalaamu sida caadada uu ahaan jirtay buu maalin maalmaha kamid su'aal u weydiiyay markii salaada subax la tukaday wuxuu ku yiri xalay yaa wax riya arkay waa aamusnay buu saxaabi markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ana riyooday xalay waxaan ku riyooday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam laba nin baa ii yimid gacantay i qabteen waxay ii qaadeen oo ii kixeeyeen al-ard al-muqaddasa dhulkii barakaysnaa meesha markay i geeyeen waxyaalo ajaa'ib leh buu nabigu ka sheekeeyay sallallahu alayhi wasallam oo riyadiisa uu ku arkay wa ru'ya al-anbiya'i wahyun riyada nabiyaduna sideedaba riyada aadamaha kala lamid mehe waa wahyi waa shay xagga alla ka yimid oo xaq awey riyada aadamaha kale ee marna shaytaan ka timaadna marna sheekada nafta ka timaadna marna malaa'iktu keento saddexda u qaybsanta ma aha riyada anbiyadu waa wahyi nabigu waa riyooday salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ajaa'ibta habeenka la tusay waxa kamid aha nin fadhiya mid kala dul taagan midka dul taagani wuxuu haystaa bir qalloocan oo afkeedu qalloocan yahay oo birahan hilibka la suro kawaanada hilibka lagu iibiyo yaale ee hilibka laga laalaadiyo bir noocaas uu haystaa midka taagan mid fadhiyo hoostiisa fadhiyo birta qalloocan intuu qalka ka geliyo ayuu dilaacinayaa ilaa uu qadaadka ka gaaro haddana dhanka kale uu soo wareegayaa intuu qalkan ka geliyo ilaa qadaadka dilaacinaya intuu kan ku mashquulsan yahay kan dambe ee uu dilaacinayo kii dhankane markii hore uu dilaaciyay baa sii bogsoonaya kan markuu dilaaciyo haddana kan u soo noqonaya sidii baa kale ku sameynaya kan intuu ku mashquulsan yahay haddana kii baa bogsoonaya haddana waa ku soo noqonayaa sidii buu u dilaacinaya sidaasuu ku jirayaa ilaa qiyaamada laga gaadhay nimankii waday baan weydiiyo waxaan idhi buu yidhi warkankadeedan ee sidan loo ciqaabayaayo muxuu ahaa waxay igu jawaabeen dabcan labada nin ee wada waa laba malag oo rag isu soo ekeysiyay aadama ah waxay ku yidhaahdeen ninkan ruuxan sidan u ciqaabani wuxuu ahaan jiray nin been sheega beenta markuu sheegana waa laga xambaari jiro waa laga qaadi jiray markaasaa jihooyinka lagu kala faafin jiro meel walba la gaadhsiin jiray maadaama uu beenta abuuri jiro baatilka abuuri jiray kadibna la faafin jiray sidaasaa loo ciqaabayaa ilaa qiyaamada laga gaadho haddii qiyaamo la gaadhana xaalku waa xaal aakharo wey maanta waxaa isweydiin leh waagaas warka waxaa lagu faafin jiray turuq bidaa'iya ruux baa qaadi jiray warka wuxuu gaadhsiin karana dad kooban bay ahaayeen ama ruux ama koox meel joogta ama in meel fadhida yuu warka gaadhsiin jiray maantase waxaa dhacaysa qaabka bini aadamku isugu xidhmay halkii war ee la sii daayay inay dhegaystaan malaayiin basharka ka mid oo qaaradahoo dhan ku nool idaacad buu fadhiyaa
been buu sii daynaya yaa dhegaysanaya malaayiin baa dhegaysanaysa shaashada telefishinku hor fadhiyaa been buu sheegaya baatil iyo zuur buu ku warramaya markaasay aafaaqda oo dhan bay gaadhaysaa hal mar baa waxaa dhegaysanaya khalaa'iqan casri lah goobaha aadamuhu ku xidhiidho iyo mawaaqicdan tawaasulka dadku ay ku xidhiidhaan ayuu ku qorayaa ama cod ahaan u gelinayaa whatsappku gelinayaa facebookku gelinayaa fiberku gelinayaa aymugu gelinayaa waxyaalahan bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaasaa hal mar waxaa daalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaadhi kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaasuu gaadhsiisay ittaqi illaaha yaa rajul ilaahay ka baq naftaada u baq aakhiradaada u baq beentan aad sii daynayso eed khalaa'iqda ku sii daynayso cuquubadeedu waa taa waa qabrigay ku ciqaaban yihiin dadka aan tilmaamayno aakhiro laysma gaadhin ilaahay hortiisana weli lama tegin naartii weynayd iyo xaalkeeduna waa laaban yahay warkan furan iyo xubnahan furan iyo dhaqankan furan ee aan xad lahayn een alla ka cabsigu ku jirin waa wax kugu soo noqon doonee aad uga xisaabta nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh mucaad ibnu jabal baa wuxuu weydiiyey rasuul ilaahayow carabkanaga waxa ka soo baxayeen ku hadlayna ma naloo qabanaya waxan ma laysaga daba imaan doonaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alayh wasalam mucaadow hooyadaa ku weydaye dadka naarta ma waxaa ku rido madax ama dabadaba ugu tuuraayay ilaa wixii carabku shaqaystay mooye wixii carabku gooyey iyo beertuu beeray unbaa dadka naarta ku daadisa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii la weydiiyey maxaa u badanoo dadka naarta geeya rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh afka iyo carabka wax ka soo fulay iyo xubinka taranku wuxuu sameeyey ayaa u badan wax dadka naarta geliya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa markaad maqasho si alla saad ka badin weydayeen haddaad doonayso xisaab aadan ka bixi karin aakhare inaad ugu tagtana waad fasaxan tahay wax alla waxaad ka badin weydayeen haddaad doonayso inaad xisaab xadidan iyo badbaado aad aakhare ugu tagtana carabkaaga iyo xubnahaada xakame zuurka iyo beenta iyo baatilkana iska ilaali